jeediyay barnaamij aad u muhiim u ah kaasoo ah khaladaadka ka dhaca ama dadku ay galaan markay ku cusub yihiin suuqan crypto runtii waa barnaamij xiisiisa leh soo dhow xamse. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan u salaamaya dhammaan maamulka iyo madaxda iyo dhammaan ardayda SFC Academy oo aan ka mid nahay familygooda. kulankani waa noo farxad waa abshir waa waxaanu ku faraxnay caawa dhammaanta iyo group 9 SFC Academy waxay noo tahay habeenada nooga duwan maadaama aanu joogno gabagabadii iyo mukhalas maaragtaa gabagabadii cashraantii iyo waxaanu soo wadnay lixdii week ee ugu dambeeyay. kelmadaan ku qoranahay caawa inaan madashatan ka jeediya waxa weeye khaladaadkii ugu waaweyn ee qofku ku dhaco marka uu crypto ku cusub yahay ama qof kasta oo raba markuu inuu bilaabo crypto khaladaadka uu soo maro. suuqa crypto waxaynu ognahay waa meel fursad weyn taallo dabcan fursadda weyn ee taallana waxa ag yaala halis inteeda leeg ama waxaynu odhan karnaa fursadda taalla waxa la mid ah oo halis la mid ah ku xeeran. tusaale qofku marka uu rabo inuu ka mid noqdo dad guuleysta waa inuu soo arkaa dadkan challengeska ay ka gudbeen. marka 5 qodob baan kusoo koobi doonaa khaladaadka ugu waaweyn ee ay ku dhacaan dadku marka ay crypto bilaabayaan. lambar 1 haddaan ka bilaabo inuu qofku ku degdego gelitaanka suuqa cryptocurrency isagoo aan waxba soo baranin. halkan waxaynu u jeednaa iyadoo fudud dadku waxa ay bilaabaan crypto inay lacag dhigtaan oo ay investment sameeyaan iyagoo wax aqoon fiican aan u lahayn sida ay u shaqeeyaan blockchainsku iyo sidoo kale walletska sidoo kale centralized exchangeska iyo decentralized financeku sida ay u shaqeeyaan isagoo qof khibrad badan u lahayn aqoon badan u lahayn ayuu ku degdeg ahaan ku galaa suuqa. marka qofka talada aynu siinayna waxa weeye ha bilaabin adigoon wax aqoon u lahayn laakiin bilow marka aad bilowdo aasaaska akhrinta cashraanta cryptocurrency iyo wixii la mid ah. qodobka labaad ee muhiimka ah ee isaguna maaragta khaladaadka ka mid ah waxa weeye inuu qofku iibsado suuqo isagoo big taagan. waxaynu u jeednaa isagoo coin waliba ama token kaliya all time highgiisii jooga inuu qofku maaragta coin iibsado. waxaanu aragnaa suuqa cryptocurrency inuu baaxadeg sameeyo oo marna kor tago marna hoos yimaado marna kor tago oo maaragta big sameeyo all time mararka qaarna meelo dhexe kusoo istaago. marka qaladkan wuxuu ka yimaadaa inuu qofku sameeyo isagoo coinkii ama tokenkii meel sare taagan inuu lacag geliyo dabcanna wuxuu kala kulmayaa khasaare xoogan. marka qofkaana talo kale aynu siinaynaa waxaynu leenahay suuqa had iyo jeer baaxadeg buu sameeyaa marna kor buu tagaa marna hoos buu yimaadaa marka sug ilaa meelo dhexe suuqu iman karayo. khaladka saddexaad ee ay qofku dadku ku dhacaan marka ay crypto ku cusub yihiin waxa weeye inuu qofku dayaco ama uu ilaadada waxa la yiraahdo private keyskiis ama furahii uu ku furan lahaa khasnadihiisa. waxaynu ognahay lacagta cryptocurrency ku jirta waxay la mid tahay lacag walletka jeebadaada kugu jirta ama bangigaaga kugu taala. marka waa inuu qofku isagu mas'uuliyadda iska saaro oo uu sameeyo private keyskiisa inuu ilaaliyo sidoo kale centralized exchangeskiisa waxyaabaha ku furto uu basuudha u ah inuu ilaashado. qofkaasi hadduu dayaco walletskiisa ama security waxa uu ku furanayo meesha waxay tahay macnaheedu waxa weeye qofka lacagtaasi way ka luntay. talaynu isagana siinaynaa waxaynu leenahay maadaama waxa cryptocurrency kugu jira ay la mid tahay lacag gacanta ku haysato ama meel kugu jirta waa inaad samayso amaanadiisa iyo securitygiisa adigu ka shaqeyso. marka ku xidho two factor authentication waxa la yiraahdo oo Google Authenticator iyo wixii la mid ah. qodobka afraad ee isaguna khaladaadka oo ku dhacaan dadka cryptocurrency ku cusub waxa weeye inuu qofku aamino mashruuc kasta oo crypto dhex socda. waxaad arkaysaa dad yow kala duwan oo scams u badan oo odhanaya waxaan waa crypto waa coin cusub waa waxa iyo mashruucyo beena. marka qofka waxaynu leenahay internetka waxyaalaha dhex socda waxa ka mid ah mashruucyo been abuur ah oo aan waxba ka jirin oo la rabo in lacagta yar aad adigu haysatid rabto inaad mustaqbal ku abuurato kuwa raba inay ku dhacaan. marka waa inaad fahanto aad soo baadho waa inaad hubiso kooxda ka dambaysa waxaad mashruucan aad maal gashinayso waa inaad fahanto white paperkiisa waa inaad markaa maaragta haddii aad ku qanacdo de waxaan sal iyo raad leeyihiin aad maal gashan karto. qodobka ugu dambeeya ee shanaad aynu kusoo gabagabayn doono ee ka mid ah khaladaadka dadka crypto ku cusub ay galaan waxa weeye inuuna qofkan exit plan ba lahayn. markastood wax galayso sidaad marka horeba ugu maaragta dhiiran tahay inaad waxa kamera keento haddiiba sidaa cagsigeeda ay arrintu noqoto waa inaad exit plan yeelan karto. tusaale dad badan waxay bilaabaan crypto iyagoo aan garanayn goorta ay galayaan goorta ay crypto iibsanayaan
marka suuqu hoos u dhaco waxay sameynayaan dee kaasoo qofkii wuxuu noqonayaa qof dismoraala marka hadduuba ay dhacdo aad idinka maaragta adigoo yara dee maaragta aad gasho hawsha ood cryptocan ka iibsato ama meel kaleba aad mashruuc ka iibsato waa inaad leedahay exit plan marka qofka qaar talaynu siinaynaay waxaynu leenahay qorshe horta coinka aad xilligaad iibsanayso markaad coinka xilligaad iibsato aad qorshayso waa inaad garato inta aad hayn karto iyo halka aad kaga hadhayso markasta qasab maaha coinkaasi inuu faa'iido keeni karo laakiin haddiiba aad faa'iido ka keento faa'iida meel aad ka qaadanayso haddii coinkaasi uu maaragta meel qaldan ku dhaco ama si qaldan ay wax u dhacaanna waa inaad meel aad kaga hadhi karta ay jirta marka waxaynu kusoo gunaanadaynaa suuqa cryptocurrency ma aha meel ay faa'iido boqolkiiba boqol taalo waa inuu qofku barto khibrad u yeesho khataraha yar iyo meelaha laysku dhici karana ka leexdo marka kelmadaynu ku gabagabayno kelmadda waxay leenahay baro qorshee kadibna ku dhaqaaq xigmad iyo taxadar taas ayaa ah guusha dhabta ah ee aad crypto kaga guul gaari karto talada ugu dambeysa waxa weeye ha noqon qof khasaare baranaya ee noqon qof guul markasta barta liibaa khaliifo aad baad umahadsan tahay adiga iyo maamulkii crypto ee dhammaan SFC Academy aadna waa idin salaamaya mikrofoonka adaa le wala liibano